10 ruux ayaa ku dhimatay 50 ruuxna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaal aad u qaraar uu dhex maray xarakada shabaab wal mujaahidiin iyo ciidamada dawladda ku meel gaarka oo ay kaawayaan kuwa Amazon goobaha lagu dagaalamay waxa kamid ah wadada warshadaha iyadoo la maqlayay dhawaqa hubka la isku ridayay iskoorimaadkan waa mid saameyn ku yeeshay isu socodka dadka iyo waliba inay xirmaan xarumaha ganacsiga qaar kamid ah iyo wadooyin halbowlo ah magaalada Muqdisho ma aan markii ugu horeysay magaalada Muqdisho ay ka dhacaan dagaalo kuwan la mid ah iyadoo mudooyinkii la soo dhaafayna dhinacyada diriraya ay guulo kala sheegteen Ali Ilyas Abdullahi TV-ga caalamiga Hon Cable magaalada Muqdisho waliga wilaayada islaamiga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ugu baaqay shacabka inay ka qayb qaataan dagaalada ay kula jiraan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee ciidamada midowga Afrika sida warkaan ku faahfaahinayo wariyaha Mahad Maxamed Cismaan gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee xarakada al-shabaab al-mujaahidiin Sheekh Maxamed Abu Cabdallah oo fagaara ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose kula hadlayay kumanaan dad ah oo soo daawasho tagay meydadka 9 askari oo ka tirsan ciidamada Amazon oo lagu soo bandhigay halkaasi ayaa ku baaqay dagaal ka dhan ah dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada Amazon ee ku sugan magaalada Muqdisho Sheekh Maxamed Abu Cabdallah waxa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay dagaaladii ay la galeen ciidamada dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa Amazon ay kaga guuleysteen isla markaana loo baahan yahay in ay shacabku gacan ka geystaan dagaaladaasi dadweynaha soo xaadiray goobta fagaaraha ah ee lagu soo bandhigay meydadkaasi oo isugu jiray rag haween iyo caruur ay da'doodu aad u yar tahay ayaa ku dhawaaqayay ereyo ay kaga soo horjeedaan joogitaanka ciidamada Amazon